Good afternoon, learners. This is our second lesson. Today we are going to look at the present tense. And as we have earlier said, the present tense is divided into three different forms. Today we are going to begin with the first form, that is the simple present tense. Marka maanta qaabka koowaad ee waxaan arki doonaa present tense ah. qaabkaasna waxaa la lahaa the simple present tense ala. Marka simple present tense indicates waxayna tusaysaa that action ficilka is present inuu yahay mid maanta joogo now hadda camal dhici karo xilligan relative to marka loo fiiriyo the speaker qofka ku hadlayo oo right amse qofka qoraayo. marka ficilkaas lagu sheegayo ama luqadda sideedaba ama waa lagu hadlaa ama waa la qoraa. marka qoraalkaasi ama hadalkaasi present simple marka isticmaalayno waxayna tusayaan wax waqtigooda markaas la joogo. Generally guud ahaan it is also used waxaa sidoo kale loo isticmaalaa to describe in lagu qeexo actions ficilada that are truthful ee dhabta ah, wax walba oo maanta dhab ah oo maxaa la jir isla aaminsan yahay or mise habitual things mise waxyaalaha soo laabto ama mar walba dhaco which occur kuwaas oo markaas dhacayo in the present waqti markaas la joogo. marka waqti qaar waxay ku darayaan it is not necessarily to happen at the moment. marka ficilkaas looma baahna inuu hadda oo markaas dhacayo, laakiin waa wax maarta soo laaban karo ama dhab ah oo mar walba dhaco taas ay leeyihiin. general form marka qaabka maarta guud maarta lagu garan karo ama marka rabto inaad dhisto jumlada aad ugu hadlaysid present simple tense qaabka ku imaan lahayd ayaan marka arkaynaa. jumladaha horta first mar walba inay ka bilowdaan subject. jumladaha present simple ka mar walba inay ka bilowdaan subjectna waxaa la the doer of the action, ficilka qofka sameynaya mise shayga sameynaya waxaa la subject. marka subject way iska fara badan yihiin. inta badan waxaa la isticmaalaa pronoun la isticmaalaa magacyada la isticmaalaa. marka formka wuxuu noqonayaa subject marka ku bilowdid am miss is miss are raacinaysa. marka saddexdaasina waxaa la auxiliary verb ama helping verb sala. kadib waxaa raacinaysa verb raacinaysa. verbkaas waxaa laga sidiisa inaad ku isticmaashid ama haddii kale verbka waxaa raacin kartaa s ay raacayso ama haddii kale verbka waxaa raacayso es ama verbka waxaa raaci karo ies. mar walba waxay ku xiran tahay verbka isticmaalisid. verbyada qaar sidooda lagu isticmaali karaa, qaarna waxaa qasab in la raaciyo s ama es, qaar kale tan la raaciyo ama qaarkood la raaciyo ies. okay, marka subjectskan marka waxay kala yihiin I hadaa isticmaasho subject I hadaa isticmaasho oo marka first person kaliya iska hadlaysid waa inaad raacdo am kadibna verbka sidiisa isticmaalaysaa. verbka sidiisa ayaad isticmaalaysaa. haddii aad isticmaashid he she it saddexdaas mid ka mid ah oo saddexdaba ay yihiin singular subject. all singular subject waa hal qof ay ka hadlayaan. he waxaa loo isticmaalaa marka qof ragga ka hadlaysid. sheena qof dumar ah. itna waxaa loo isticmaalaa waxaan caqliga lahayn oo xoolaha ah ama geedaha ama waxaan nooleen ama maxaa la jira xayawaanada loo isticmaalaa. marka intaa mid ka mid ah haddaad isticmaashid waxay raacaysaa is auxiliary verb raacinaysaa. kadib verbkii oo lagu daray s ama lagu daray es sii raacinaysaa. ugu dambeyn haddii aad isticmaashid we you they kuwaasina marka all plural subject waa plural waaye jamaca loo isticmaalaa. we waa anaga. I hadda aan soo sheegnay marka haddana jamaca ka dhigto waxaa isticmaalaysaa we. you ayada second person aan lahaa hal qof markaa la hadlaysid ama dad badan aad la hadlaysid waa la isticmaalaa. theyna waxaa la isticmaalaa marka he oo fara badan dad fara badan la hadlaysid ama she oo badan ama it oo badan markaa la hadlaysid ama ka hadlaysid waxaa la isticmaalaa they. marka ayagana waxay qaadanayaan we ama you ama they haddaa isticmaasho waxaa raacinaysaa kadibna verbkii oo sidiisa ah ayay qaadanayaan. marka inaa fahantiin filayaa. please read it very well, si fiican loo soo akhriyo. and in our next lesson we shall look at the uses of simple present tense. simple present tense maxaa loo isticmaalaa tusaalooyinka jumladaha loo isticmaalana maxay yihiin aan arki doonaa casharkeena soo socda insha Allah.
I wish you the best. Good afternoon, learners. This is our second lesson. Today we are going to look at the